muddooyinkii u dambeeyey waxaa ku soo batay magaalada Hargeysa gaadiidka ay la soo baxsanayaan amaba ay soo kaxaysanayaan caruur yaryar isla markaasina waxyeello kala duwan u geysta meelaha iyo jidadka ay marayaan iyo bulshada ku suganba. gaari noociisu uu yahay nooha sumadiisuna ay tahay 48,110 ayaa caawa fiidkii waxa uu khasaare kala duwan soo gaarsiiyey qaar ka mid ah dadka ku nool xaafadda Xira Awr ee magaalada Hargeysa. gaarigan noohada ah ee caruurta ay wateen oo xawaare xoog leh ku socday ayaa galay meherad yar oo ah nooca loo yaqaan goodida oo uu ku sugnaa jaamac oo ahaa odayda ah isla markaasina halkaasi kaga soo baxa quutal daruurigiisa nololeed. waxaana guud ahaanba dadkii halkaasi joogay ay ku warheleen gaariga noohada ah ee ku baaba'ay sandaqadii yareed ee jaamac, balse nasiib wanaag waxa uu noqday mid aan wax dhibaato ka soo gaarin kadib markii laga soo saaray labada taayir ee gaariga dhexdiisa. ayay hoos galeen labada taayir ayaa hareeraha ka maray maadiga bismillaahir rahmaan labada taayir ba hareeraha ka maray halkaas lugaha ay hoos galeen. inkasta oo ay jiraan dad kale oo waxyeello ka soo gaadhay oo uu ka mid yahay Axmed Ciise Shariif oo gaarigiisa oo nooha ah uu gaarigan ku dhacay ka hor intii aanu ku dhicin meherada jaamac ayaa isaguna waxa uu yiri halkaas maqadiru ma dhacdo xagga uu wax ka soo dhacay si aan isaaheedna markaa kala xal markaa gaari gaari hoos aan ma soo gaari dib lagu soo tuuray inta soo qaray waxaan ku soo socdaa laakiin kama sheekay gaari gaariin inuu xagga ka yimid samada ka yimid inuu naga hoos waxay garan kartaa waxa baxsaday dhamaanba dhalinyarada yaryar ee gaarigan ku shuraakoobay soo kaxaysigiisa. waxaana halkaasi soo gaaray ciidamada nabadgelyada wadooyinka oo baaraya sababaha ka lifay shilkan iyo sida ay xal uga gaari doonaan. shacbiga ku dhaqan magaalada Hargeysa ayaa badiba waxa ay u badan yihiin dad aan dhammaystirin xirfadii iyo waajibaadkii sharci ee loo baahnaa in lagu wada gaadiidka isla markaasina lagu sugo inaan wax dhibaato keenin.